hooyadan ayaa waxay sheegtay kaliya inay jeceshahay ragga bad boyska laakiin dhaqamada iyada ay sameynaysa hamar waxaa giligili dhammaan internetkii. haweeneydan oo lagu magacaabo Ash Trevino kuna caan ah Ash Trevino ayaa dawaaqadii 2019 baraha bulshada gaar ahaan TikTok soo biirtay welibana iyadoo gilgishay dhammaan internetkii kadib markii ay sameysay wax ugu xumay ay sameyso qof hooyo ah. haweeneydan ayaa waxay jeclaan jirtay ragga bad boyska gaar ahaan kuwa ku jira xabsiga. arrintan ma mid kaliya iska sheegay waa mid iyada ka sheegtay barteeda bulshada gaar ahaan TikTok-geeda iyadoo xitaa raggaas la kulminaysay gabdhaheeda. mid kamidana waxaa bala sheegay xabsiga inuu ugu jiray inuu dilay laba haween ah mid la eg gabadheeda iyo mid kale qof weyn ah. waxa uga cabsida badan waxay tahay haweeneydan waxay jeclaatay wiil ay jeceshay gabadheeda xitaa mar waxay guursatay mid ku jiray xabsiga iyagoon inta badan isku diri jiray waraaqado. maalinta guurkooda waxay xabadkiis ku dhigtay sawirkeeda welibaneed oo dhees waxaan isguursanin aniga ninkan. isla bil gudaheeda dadkii ku xirnaa akoonkeeda faniskeeda daacadda ayaa waxay sameeyeen waxay kurbad gareen shirkadda iyagoona iyadoo idilba codsi ka dirsaday in laga xiro akoonkeeda. shirkadda dhaqso soo jawaabtay isla shirkaddii ayaana ka xirtay akoonkeeda. wixii maalintaas ka dambeysana Ash Trevino akoon waliba ay sameyso waa laga xiri jiray. haddaba saaxiib yaal dhacdadan iyadoo dhammaystiran waxaad soo daawan kartaan YouTube-keena Khafiifo ama Facebook-geena.